والد لما أنا هنسقب وقضية إسلام وحي يمادين دكتور مسلم حفيز كي يمادين وحي كويرادين today we lost our only baby ما أنت وحنا قد أنت baby كلي عن لهين بل كورن أو صوريسو قضية إسلام دقة أو كد أنت وحي ويرين our only baby كلي إنه كنا حيني سيد دريمي لهيد والدو فضلا مقالة نصعدوها شو channel كان هذا لقول سمي والد ليجاسي سبسكرايب ولا لهم مسلمين تاعنا لا شير قريه بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد لما عنوه وقضية إسلام وحوي مادين شيخا أو دكتور وحي لهذين مانتا وان مروجيسناهي waayo waxaan weyno naga dhintay baby kaliya lahayn kadib waxay uga sheekayeen halganka ay la soo mareen waxay yiraahdeen guri weyn oo qurux badan baan ku jirnay oo babygaasi uu ku raaxaysto qolkiisa wax walbaan u dhignay muddo kadib waxaan ogaanay gurigan weyn inuusan u dhaweyn parkiyada iyo meelaha lagu orordo ee lagu ciyaaro sidaa darteed babyga dartii ayaa waxaan ugu guurnay guri yar in uu helo park uu ku orordo muddo kadib haddana waxaan ogaanay in labadayaduba aan shaqaynayno sidaa darteed our only baby ilmihii kaliyanu ka naxaynay uu u baahan yahay qof naga mida in uu la joogo uu la ciyaaro uu waqti siiyo waayo labadeenba waan shaqaynaa waalid ka waran labadan lamaane odayga islaamta mid ka mida shaqada ka tagay in waqti ay siiyaan oy la joogaan babygooda bal fiiri inta halgana ay la marayaan waxay yidhaahdeen maalinkii dambe waxaa ku dhacay depression waxaan geynay dhakhtarka aqoonta ule inuu daweeyo muddo kadibna wuu naga dhintay iyadoo ilmadu ay ka da'ayso labadooda ayaa waxay ku celceliyeen wuxuu ahaa babyga kaliya eenu ka naxaynay isaga dartii baan guriga weyn u iibsanay haddana isaga dartii baan guri yar oo parkiga lagu orordo u dhow ugu guuray kadibna isaga dartii ayaa labadayadii shaqo mid aan uga tagnay dartii si uu u helo waqti midka kale uu la qaato una naga dhintay iyagoo ooyaya waxaa cajiiba our only baby markay leeyihiin babyga kaliyaenu ka naxaynay bini aadan ma ahayn laakiin waxay ka hadlayeen ay yar oo chihuahua la yidhaah ayga dhegihiisu saa u laaban yihiin lamaanahan odayga islaam waxay u ooyayaan ay ku sheegayaan our only baby ilmo ama bini aadan ma ahayn waalid ee wuxuu ahaa ay yar ay kursanayeen iyagoo caddaan bay ahaayeen sheekhuna waa sheekh la yaqaano dhaktara oo ah midka dadka la taliya marka ay murugoonayaan su-aasha aan isweydiinayna waalid waxay tahay haddii oday iyo islaan aan muslimiin ahayn oo gaalo ah ay halgan noocaasa la galeen oy u mareen ay dartii oy guri weyn ugu guureen oy qolka u dhigeen wax walba oo haddana markay dareemeen gurigan weyn inuusan lahayn park lagu ciyaaro ay ayga dartii ugu guureen meel parka oo lagu ciyaaro muddo kadib odayga islaamtu ay dareemeen in aygu u baahan yahay labadooda mid ka mid a waqti ula qaato oo shaqadaba ay uga tageen oo halganka noocaas ay u mareen annaga waalidiinta muslimiinta ah ilmahan muslimiinta ilaahay nagu ammaanaystay ee beri akhrina la weydiin doono halgan noocee ah ayaanu u galnaa sacrifice noocee ah ayaan u samaynaa tadxiya noocee aan u samaynaa ma jiraa maanta waalid dhihi kara labadayada waalid ee shaqaynayna mid ka mid a shaqada ha ka tago maxaa yeelay ilmaha iyagaa noo baahan iyagu laakiin halgankaa waxay u galeen waa ay waxaan rabaa inaan idhaahdo nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam isaga oo xaaskiisa iyo ilmihiisa yar la socda ayaa wuxuu marayay meel saxara ah oon biyo lahayn oon baad lahayn oon cunto lahayn oon dad joogin markaasuu xaaskiisii iyo baybigii yaraa ilmihii ay wadatay meesha cidlada ah yidhi xagganaan idiiga tegaya ma u malayn aabbo inuu sidaas samayn lahaa uu gabadhiisa uu qabo iyo ilmihiisa hadda dhashay uu saxaro uga tegi lahaa sababta ugu xishay maxay tahay qur-aanka inoo sheegaya wuxuu yidhi rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaa ilaahow reerkayga xagganaan uga tegayaa xaaskayga iyo ilmahayga xagganaan uga tegayaa saxaro cidla ah oon biyo lahayn oon baad lahayn oon cunto lahayn oon dad joogin oo geri go-an cidla ah sababtu maxay tahay wuxuu yidhi cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaa meeshan cidladaa waxay ilaahayoo u dhowdahay sababta aan uga tegaya waxa weeye masaajidka gurigaagay u dhowdahay waxaan rabaa marka inay salaada ogaan nebi ibraahim calayhi salaam sababta uu xaaskiisa haajar iyo wiilkiisa ismaaciil oo yar uu cidlo saxarahan uga tegay meeshu waxay ahayd ku dheganayd u dhoweyd masaajid beytka ilaahay wuxuu rabay marka in salaada ay ogaan qur-aanku sacrificekaasuna baraya qur-aanku tadxiyadaasuna baraya sheekooyinkan bilaash qur-aanka looguma sheegin waalid ee alle wuxuu qur-aanka ku yiri faqsusi lqasasa lacallahum yatafakkaruun nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qisooyinkan uga sheekee ummadaada si ay duruus uga qaataan janaalka waalid legacy channel waalid adaa lagu sameeyey waxaana loogu talagalay duruusta noocana inaan idinla wadaagno fadlan saad muuqaaladan u heshaan subscribe dheh walaalaha muslimiinta nala sheer gare qeybaha dambena la soco wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu